Qisadani waxay ka hadlaysaa faa'iidada iyo qiimaha ay leedahay sadaqadu. Gabadh ayaa habeen badhkiisii hurdada ka soo kacday, balse waxay aragtay wiilkeedii yaraa oo sanka dhiig ka socda. Waxay u carartay xagga odaygeedii. Waxay ku tiri, "Xaaji, kaalay aan dhakhtar geyne." Waxa uu ugu jawaabay, "Wiilkaagu 100 nafood ma lahee, ha i toosin, waan yar hurdayaa." Gabadhii meel ay u kacdo ayay garan weyday, balse waxay soo xasuusatay qisadan ku dhacday ku yar oo doon saarnaa. Doonta markuu saarnaa ayuu sadaqaystay 2 xabo oo roodhi ah, balse doontii ayaa degtay. Waxaa isaga keligii u soo gurmaday 2 nin, wayna badbaadiyeen. Waxayna ku yidhaahdeen, "Mana garanaysaa?" Wuxuu ku yidhi, "May," balse waxay ku yidhaahdeen, "Waxaan nahay 2dii roodhi ee aad sadaqaysatay." Haddaba gabadhii waxay damacday in ay sadaqo bixiso si uu Allah subxaanahu wa tacaala ugu caafiyo wiilkeeda. Markiiba qaanadaha dharka ayay baadhay, maryo ay lahayd ayay soo qaaday, albaabka ayayna furtay, cidna way ka weyday. Waa meel mugdi ah. Dharkii kaabada guriga ayay saartay, waxayna tiri, "Allahayow iga aqbal, wiilkeygana caafimaad ku sii." Kadibna albaabkii ayay xidhay, wayna seexatay. Markii ay kacday aroortii, waxay aragtay wiilkeedii oo dhiigga ka go'ay ama ka istaagay, sankiisuna nadiif yahay. Waxay u carartay xagga iyo dibadda, mise dharkiiba ma yaalo. Ilaahay sadaqadaas ayuu ku badbaadiyey wiilkaas yar. Sadaqadu cudur kasta ayay daawo u tahay. Aad baad mahadsantiin. Wabillahi tawfiiq.